Ethiopia Soomaaliya marka la eego waxa guul taagan Ethiopia guul taagan marka dhinac marka la eego wasaas waxay u eg tahay inay ku dul baayactamayso Soomaaliland inay ku dul baayactamayso oo ayna waxyaalo qarqarinayso ayay u eg tahay. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaarta hawada naga daawanaysay halkani waa MMTV. daawadayaal ku soo dhawaada falanqeyn aanu si gaar ah ugu eegi doono dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegayaa in ay qorsheynayso inay u ogolaato in ciidamada Ethiopia ay qayb ka noqdaan hawlgalka cusub ee nabad ilaalinta ciidamada la filayo in ay bedelaan ciidamada imika joogay nabad ilaalinta kuwaas oo ka hawlgali doona gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay muddo diidaneed in ciidamada Ethiopia ay qayb ka noqdaan hawlgalkaasi hase yeeshee kulankii ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxa lagu cadaadiyay ama qayb ka ahaayeen waxyaabihii laga wada hadlayay in ay Soomaaliya ogolaato in Ethiopia qayb ka noqoto hawlgalkaasi hadda waxaan eegi doonaa heshiiskan Ankara sidee ayuu ugu qasbay Soomaaliya in ay ogolaato in Ethiopia qayb ka noqoto ciidamadaasi nabad ilaalinta sidoo kale waxaynu eegi doonaa maadaama oo xiisadii geeska Afrika ka taagneyd ee ka dhalatay isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia dhexmaray in markii Soomaaliya iyo Ethiopia khilaafkoodu cirka isku shareeray in ay Soomaaliya isfaham dhinaca ama heshiis dhinaca amniga ah la gashay dalka Masar oo in ognahay in Ethiopia ay xiisad colaadeed ay kala dhaxayso taas oo salka ku haysa wabiga Niilka haddaba sidee ayay Soomaaliya ay u wada hayn kartaa ama gudaha Soomaaliya ay uga wada hawlgali karayaan ciidamada nabad ilaalinta oo qayb ka ah Ethiopia iyo kuwa Masar Soomaaliya sidee ayay arintan ay u xalin kartaa hadii tusaale ahaan Masar ay sheegto inay ciidamadaasi nabad ilaalinta ay qayb ka noqon karto Ethiopia ay qayb ka noqoto Masar ma yeeli kartaa in ay imika Soomaaliya dhinaca Ethiopia heshiis la gashay oo ay u jajeestay sidoo oo kale Ethiopia lafteedu ma yeeli kartaa in ciidamada Masar ay qayb ka noqdaan nabad ilaalinta ciidamada ee Soomaaliya ku sugan ee ka hawlgali doona sanadka 2025 qodobadaasi oo dhan ayaynu falanqeynteena ku eegi doonaa waxaana marti igu ah Cabdinaasir Xasan Timoweyne oo ah bare ka tirsan ama wax ka bara jaamacadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa waxaan u dhigaa xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda sidoo kale waxa inta badan uu ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo bariga dhexe waana qoraa inta badan arrimaha dhinaca xiriirada caalamiga wax badan ka qora Cabdinaasir hadii aynu u soo gundadegno su'aasha ugu horeysa in hadii Soomaaliya tusaalahan imika ay ogolaato in ciidamada Ethiopia ay qayb ka noqdaan ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee sanadka 2025 ee ATMIS bedeli doona maxay kula tahay waqtigan in ay tusaalahan oo kale Soomaaliya inuu halkii ka taagneed arintan way u ogolaan kartaa inay ciidamada Ethiopia qayb ka noqdaan oo ay Soomaaliya sii joogaan iyadoo ay ogeyn inay ku baaqaysay inaanay marnaba aanay ka noqonayn magaranaysaa ilaa ay isfahamkii Soomaaliland Ethiopia ka noqoto inaanay ciidamadaasi qayb ka noqon doonin maxay isbedelay waxa isbedelay heshiiskii Ankara ee lagu gaaray ama isafgaradkii Ankara ay ku gaareen labada mas'uul ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa wuxuu keenay in ay Soomaaliya fikirkeegii ku aadanaa arrinka ay bedesho isla markaana ay ogolaatay inay soo dhaweyso inay ciidamada Ethiopia oo aad u doonayay inay wadankan ay ka noqdaan qayb nabad ilaalinta Soomaaliya inay ku soo biiraan gaar ahaan ma aha wax banaanka ka yimid wax ka yimid dawladda Soomaaliya siday u muuqato waxa weeyaan heshiiska maadaama uu dhexdhexaadinayay waxa weeyaan Turkiga uu dhexdhexaadinayay laftigiisu wuxuu ku leeyahay saameyn marka arrinkani wuxuu ka dambeeyay in kastaan ku qornayn wuxuu ka dambeeyay heshiiskii ama isafgaradkii Ankara ay ku gaareen waxana weeyaan arrin negative yani ku ah markaad eegto tartanka labada dal ama saddexda dal ka dhaxeeyay ama gobolkaba ka dhaxeeyay waa arrin negative ah oo uu leeyahay heshiiskan ama isafgaradkani uu leeyahay way heshiiska isafgaradkii wuxuu leeyahay galdaloolooyin buu leeyahay ay ka mid tahay tusaale ahaan saddex arrimood oo waaweyn ay ka mid yihiin kow muu sheegin oo waxyaabaha keeni doona xataa khilaaf dambe in xataa Ethiopia loo ogolaaday oo Soomaaliya isbedeshay waxyaabaha laga yaabo inay mas'uul ka noqon doonaan khilaafyo dambe oo dhaca waxa kaloo kamid ah inaan heshiiskii ama isafgaradkii lagu qeexin waxa weeyaan ama lagu sheegin damicii Ethiopia ee saldhigga ciidanka badda inaan lagu sheegin baa kamid ah waxa kaloo kamid ah Soomaaliya ciidankeegii ay la shaqeeyaan Egypt
iyadoo meesha laguma qeexin sida laga yeelayo laguma qeexin sidoo kale heshiiska laguma qeexin waxa weeyaan Ethiopia waxay doonaysaa bad amnigaana cid ilaalinaysa laguma sheegin maadaama waxa weeyaan de wadankii Soomaaliya hadii looga ogolaado de ay al-shabaab joogto oo aanay ka adeegan karin Somaliland de waxa weeyaan Somaliland dhulkeeda gaarka iyada leh oo deecidi ma keeni karto waxa kale oo dheeraad arrinka dheer isagana hal dabeecad oo u dhaxaysay Masar iyo Ethiopia oo ah Ethiopia meesha waxa la isku keenaya Ethiopia doonaysa hegemizing waxa regional hegemizing doonaysa gobolka inay ka libaaxayso iyo Masar oo leh no kama libaaxin kartid gobolka Geeska Afrika anana ka hortaagan labadan baa la rabaa in la isku keeno wax loo yaqaano maxaa la yiraahdaa la isku keeno wadankii Soomaaliya la isku keeno marka Soomaaliya waxaad u malaynaysaa inay calalinayso wax afkeeda ka weyn inay calalinayso ayay u egtahay sidoo kale heshiiskani wuxuu keenay wuxuu caqabad ku yahay wax loo yaqaano wuxuu ku keenayaa dawladda Soomaaliya federaalka wax loo yaqaano legitimacy crisis dawladda Soomaaliya legitimacy-gay luminaysa maadaama ay u ogolaatay Ethiopia wixii ay doonaysay u ogolaatay isla markaana haddana Ethiopia ay ogeyd sida ay waxa weeyaan Soomaaliya ay isku hayeen haddana ay u ogolaatay in ciidankeyga haddana ku soon ay yimaadaan waxay ku keenaysaa marka dawladda laftigeeda legitimacy crisis ay ku keenaysaa iyo kacdoona ayaa ku kici doona ay ka kow tahay al-shabaab oo awood yeelata oo dadka diidan waxyaabahan oo dhan ay nugliisada inay fikirka al-shabaab oo kale ay soo dhaweeyaan okay way su'aasha isweydiin waxa markaa weeyay tusaalahan oo kale halkay Soomaaliya ka taagnayd oo ciidamada Ethiopia inay qayb ka noqdaan marka Ethiopia lafteeduna aad bay u daneynayso oo markasta in ay qayb ka noqoto hawlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya iyadoo leh ilaa muddo dheer baanu qayb ka ahayn nabadda Soomaaliya inaanu ka shaqeyno marka imika tusaalahan kale halkii la taagnaado ka qiyaas qaadanaya Ethiopia iyo Soomaaliya marka arrimahan la eego iyo guul taagan Ethiopia Soomaaliya marka la eego waxa guul taagan Ethiopia guul taagan Soomaaliyana wuxuu ku yahay arrinkani wuxuu ku yahay 40% Soomaaliya de guul way heshay laakiin waxa ka guul badan Ethiopia ka guul badan taasina waxa weeyaan Ethiopia wixii ay doonaysay ay tiri waxaan ku raadinayaa maxaa la yiraahdaa wada hadal wax isdhaafsi ama xoog ay tiri ayaa waxay ku marsiisay sanka kaga tashay inay Soomaaliya ogolaato marka Soomaaliya waxa sida ayadu ay u dhaqmayso inkastoo Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo heshiisyo caalami gali kara haddana Soomaaliya sida ayadu sheeganayso badaha soo ayada sheeganayso marka waxa siday aaminsan tahay waxa lagu haystaa waa shaadkeegi marka shaadkeegi bay ka tanaasushay inay qayb ay qofkii ku murmayay ay tiraahdo wax baan ka siinaya laakiin sidoo kale heshiiskani waxa weeyaan waa wixii loo diidayay dawladda Somaliland in ay gasho buu haddana galay marka la garanayo wuxuu difaacay haddaba guusha waxa taagan sanaamisanahay Ethiopia ayaa guusha taagan waxa kaliya uu ka helay ay Soomaaliya ka heshay waxa weey waa in ay joojisay xiriirkii diblomaasiyadda dhexmari lahaa ama wixii ay kala heli lahaayeen Ethiopia iyo Somaliland inay meesha ka saartay ay u eegtay inay meesha ka saarto kaliya weeyaan laakiin waxa weey Soomaaliya arrinkaas aad bay uga hooseysaa inkastoo ay ujeedooyinka qaar gaadhay haddana Ethiopia ayaa guusha badan leh okay laakiin salaamka laga hadlayo Ethiopia kale ilaa imika iyadoo si rasmi ah ma sheegin isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia ay hore wada galeen koodii bishan January ee sanadkii 2024 inay si cad uga noqotay ma sheegin marka ma la oran karayaa Ethiopia lafteedu arrimaheedu wali ma cadda oo waxay doonaysaa ilaa waxyaabaha ay ka wada hadlayaan Soomaaliya ilaa wada hadallo la soo dhirinayo oo gabagabada la gaaray maadaama la sheegay ilaa February in wada hadallo soconayaan ilaa ay wax rasmi ah dhinaca Soomaaliya ballanqaad rasmi ah ka hesho inaanay ka baxin heshiiskii isfahamkii Soomaaliya iyo Ethiopia labada dhinac waa loo fasiran karaa laakiin markaad eegto sida heshiisku u egyahay waxay u eg tahay inay ka baxday afka kama sheegin laakiin sidoo heshiisku u qoran yahay waxay u eg tahay inay ka baxday sababtuna waxa weey waxa saddex calaamadood buu leeyahay ama saddex karakter buu leeyahay wuxuu ku dhacay qalinka ama saxeexa dawladda Ethiopia waxay ku dhacday in ay Ethiopia ku helayso bad ku helayso under the permission of Somalia Authority inay ku helayso ayaa meesha ku cad sidoo kale
inay ilaalinayso madax banaanida Soomaaliya ayaa meesha ku cad. Sidoo kale waxa weeyaan cid ay la hadlaysaa waa Soomaaliya la hadlaysaa. Marka maxay uga hadli weyday badda Somaliland iyo Soomaaliya, Kenya madaxweynaha Djibouti, madaxweynaha Eritrea maxay uga hadli weyday. Marka la eego waa saas waxay u eg tahay inay ku dul baayactamayso Somaliland, inay ku dul baayactamayso oo ayna waxyaalaha qarqarinayso ayay u eg tahay. Marka haddii anagu aan Somaliland hoon si smart u fikirayno taasina ma qabato, waana sida haddii ay Ethiopia gobolka ka dhiganayso inay ku dul ciyaarto cid walba ay ku dul dansto oo hadba say doonto ay u samaysana, waa sida la sheegayay waxa weeyaan Ethiopia kuma ay cadeeyeen inay ka baxday. waana rational Ethiopia kuma qaldano, waa state-kuna waa rational inuu danihiisa qariyo oo ilaashado oo uu heshiisku galaya iska ilaaliyo oo dhinac loo turjunto marka qaarkood la waaya, waa rational. marka saas ay la tahay. Okay, way marka laga hadlayo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ay imanaya ee 2025 Soomaaliya kale Ethiopia iyo Masar qayb ka wada noqon karayaan ciidamada nabad ilaalinta. wax diidaya ma jiro, way ka wada mid noqon karaan. waxay haystaan labaduba saddex option bay haystaan. kow in midkood maqnaado oo meesha ka maqnaado oo midkood joogo, kaasun baa wuxun midba midka kale wuxun. laakiin laba option oo kale wanaagsan bay haystaan oo kale wanaagsan oo good and better, waa wanaagsan ka wanaagsan. in ay wada joogaan waa option dhici karo macquul waxay ka jecel mid kasta waxay ka jeceshahay inuu ka kala maqnaado ka kala joogo, laakiin kama wada maqnaan karaan. marka Soomaaliyana ma eri karto, Egyptna ma eri karto oo meesha kama saari karto haddii erido oo ay Ethiopia ogolaato. taa macnaheedu waxa weeye Soomaaliya wax la yiraahdo ma jirto, waxa jirta Ethiopia, Soomaaliyana waa Ethiopia. hadday erido Ethiopiana marka horeba Ethiopia way saxayeen oo tan cadu way u arkaysay, kanna saaxiib way u arkaysay. marka labaduba waxa weeyaan way joogi karaan, labaduba way joogi karaan. laakiin waxay noqonaysaa wax loo yaqaano Soomaaliya ring box waxa la yiraahdaa laba wadon oo col oo cadow meel isku keenaysa. marka waa inay noqotaa ring box waxa la yiraahdaa meesha lagu feertamayo feertanka haddaad sariirtaadii soo dhex dhigato aad ku seexanisay meeshii lagu feertamayay oo laba nin oo xoog waaweyn ay ku feertamayaan, saas wadankii ayuu u ekaanaya. laakiin iyaga way u fiican tahay waxa u xunun inuu midkood maqnaado baa midka u xun ka kalena u wanaagsan. ka hadii heli waayaan inay wada joogaan labaduba waa u dan, inay wada joogaan labaduba waa u dan. laakiin labaduba inay joogaan Soomaaliya dan uma aha. Okay, way marka laga hadlayo arintii isfahamkii Soomaaliland iyo Ethiopia, dad badan waxa ay yiraahdaan ama ka doodaan yiraahdaan Ethiopia waxa uu isticmaalaysay Soomaaliland kale tusaale ahaan isfahamkaasi gorgorta si ay u hesho meel ay badda ka gaadho ama Soomaaliya uga cadaadiso. sidoo kale ma la oran karayaa heshiiskii military ee dhex maray Masar iyo Soomaaliya, Soomaaliya waxa uu isticmaalaysay gorgortan in ay Ethiopia wax badan ka tanaasusho oo ay miiska wada halka timaado. aad iyo aad waxyaabaha waliba waa run weey, waxyaabaha waliba keenay in Dr. Abiy Ahmed uu soo dabco oo ilan Xasan Sheekh wuxuu la hadlay. Xasan Sheekh wuxuu markii horeba taagnaa inuu la hadli doonin ilaa uu ka noqdo. waxyaabaha keenay inuu Xasan maanta la hadlo waxa weeyaan Ethiopia halkii la filayay ka soo dabacday. waxyaabaha soo dabciyayna waxa weeyaan waxa loo yaqaano istiraatiijiyadda diblomaasiyadeed ay ciyaartay dawladda Soomaaliya ee la yiraahdo balance power. marka dal markuu ka xoog weyn yahay eenad u dhigma karin awoodiisu ku maqooninayo, waxa la kaashadaa cid kale oo ay enemy yihiin ama ay dana isku diidan yihiin si aad u balance garayso. oo marka la isku daro Eritrea iyo Masar iyo Ethiopia heshiiska waxaan jeedaa Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya waa saddex dal oo saddexduba ay opposite ku yihiin Ethiopia markay iskaashan buureysteen. heshiiskaasi wuxuu keenay waa ka keenay oo waliba Turkigu dabada ka riixaya haddana waa ka keenay inay Ethiopia ay soo dabacdo keenay weeyaan oo ay waxa weeyaan ogolaato heshiiskan ay ogolaato aan la filin, aan dadka qaar filin waa filin inay ogolaanayso. sidoo kale waa runo Ethiopia saddex arrimoodba aniga sanad dhan buu heshiiskani taagnaa. saddex arrimoodba way adkayd inay ugu dhiirato heshiiskan. waa kow waxa loo yaqaano Ethiopian logics. Ethiopia waa dawlad goon oo institutionkeedu ha qaybsanaato, ha isdisho, ha dagaalanto, laakiin waxa dhisan waxa la yiraahdo institutionka oo bani aadamka Ethiopia ku dhex nool wala institutionka ay la qabsadeen. marka saddex arrimoodba muhiim bay ahaayeen oo ka cilmi jira. waa logiga Ethiopia
oo ay wax badan u arkaysay inay riski badan tahay inay halkaasi tagto ay muxuu ahaayey u arkaysay ka labaadna waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa pressureka diblomaasiyadda adduunka kaga imanaya ee kaga yimiday waxa weeyaan European Unionka Turkiga waxa weeyaan Masar Eritrea gobolka Djibouti adduunka oo dhan kaga yimiday oo u diiday marka iyo sidoo kale iyada laftigeega oo cidda ay la dhilgaraynaysaa ay tahay Somaliland ha ahaatay entity madax banaan ha ahaato oo Somaliland la yiraahdo oo xiriir diblomaasiyadeed oo cusub la samaysan karta Ethiopia laakiin haddana historically markaad eegto ay ogtahay cadaawada ka dhaxaysa ama xifaaltanka ka dhaxeeya dadka la yiraahdo qowmiyadda Soomaalida iyo Ethiopia taasoo markaa ayadna khatar gaarsiin karta marka waxay doonaysaa inay ku ruxdo inay Soomaaliya kaga hesho saxiix lagu saxiixayo inay hesho badda ay doonayso kaasna waa weeyaan waa loo akhrisan karaa isagana way salahan ugu dambeyntii waxaan dhan socdo ma loo oran karayaa salahan oo kale wax Soomaaliya xageeda ka yimaha wax Ethiopia xageeda ka yimaha laakiin arrimahan dhan waxa dibadda ka riixayo oo heshiisyadan iyo sidoo loo fududeyn lahaa ama loo gaari lahaa wax la wada ogol yahay madaxweynaha dalka Turkiga oo isagu de saameyn weyn ku leh Geeska Afrika aad iyo aad hadda Soomaaliya waxa weeyaan Turkigu waxa weeyaan waa ka ugu xoog weyn leh hadda xagga diblomaasiyadda ee ugu odaysan Geeska Afrika weeyaan marka dambeysana cadeyntaasi way sii taraysaa waxaana ku muujinaysa heshiiskan ama is-afgaradkan uu labada dal ka dhexdhaliyay heshiiska uu la samaystay Ethiopia uu la leeyahay heshiiska uu la leeyahay Soomaaliya wuxuu isku ilaaliyay laba dawladood oo isku kacsan oo khilaaf weyn ka dhaxeeyo oo isagana mid walba u dan gaara ay ka dhaxayso ayuu isku aadiyay marka arrinkan iminku waa arrin uu Turkigu aad iyo aad uga shaqeeyay horena uu sheegay aad iyo aadna waxa faa'iidada koobaad taagan waa isaga waa koow laba arrimood buu haystaa koow danihii uu kala haa labada wadanba sidoodii buu u wataa laba Soomaaliya wuxuu ka helay heshiis aad iyo aad u ballaaran oo kheyraadkeeda waxa weeyaan wadankaasi ku qaadanayo sidoo kalena sumcaddii gobolka Geeska Afrika ee odaynimadana isaga ayaa qaatay marka Soomaaliya decisionadan waxay ku leedahay very minor decision wax yar bay ku leedahay inta badan waxa iska leh Turkiga iska leh faa'iidana waxa gaaray ugu badan Turkiga koow laba iyo Ethiopia faa'iida gaaray saddex waa kaalinta saddexaad bay soo galaysaa Soomaaliya iyadoo dhulkeedii lagu gorgortamayo yaani waxay sheeganaysay iyadoo lagu gorgortamayo haddana dalka saddexaad ee faa'iidada gaaray ayay noqonaysaa afar de Somaliland waxa weeyaan dhulkeedii iyo badeedii waxeedii way haysataa inkastoo marka la eegayo meeqaamkeeda saaxadda siyaasadda caalamka ay wax u dhimayso oo ay tahay yesterday is better than today shalay baa ka fiicnayd oo intaanad banaanka imanin Soomaaliland waxay damacday inay tartanto marka dib baa waxoogaa loo yara celiyay marka waxay u eg tahay marka iyaduna in halkii ay doonaysay inay istaagto ay dib uga yara noqotay laakiin dhibaato weyn ma jirto badeedii iyo dhulkeedii way haysataa cid ka wanaagsan oo ay dhiilal kula gali kartaana way jirtaa iyadoo galaysa dhiil de macquulada oo rational ah oo waxa weeyaan laga fikiray oo cilmi baaris lagu sameeyay aad iyo aad budawadayaal u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Xasan Timoweyne oo ah bare sare oo ka tirsan ama ka dhiga culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda jaamacadaha magaalada Hargeysa intaanu falanqaynta la mid doonno waxaad ka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaado qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Bluecom ugu talagashay macaamiisheeda cusub sanadkan wareejiya ku guulayso qiimo dhimis u dhaxaysa 5 ilaa 30% oo hel internet xawaarihiisu sareeyo kaliya taabo linkiga moobilkaaga lagu soo diray maxaad sugaysaa wareejiya ku guulayso internet xawaarihiisu sareeyo